degmada Garadaga galbeedka gobolka Sanaag waa degmada waxa hoos yimaada in ka badan 25 tuulo iyo deegaanadooda bulshada ku dhaqan degmada Garadaga iyo deegaanada hoos yimaada ayaan haysan qaar ka mid ah adeegyada aasaasiga ah nolosha aadamaha caafimaadku waa laf dhabarta bulshada hadaba xukuumadihii kala dambeeyay ee soo maray dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa gebi ahaantoodba waxa ay ku guul dareysteen inay ka hirgeliyaan xarun caafimaad degmada Garadaga iyadoo aan lahayn cisbitaal lagu dabiibo dadka reer miyiga iyo bukaan socodka maray u kurgashay qaar ka mid ah warbaahinta ka howlgasha degmada Garadaga MCH-ka degmada Garadaga ayaa waxay ahaayeen dhamaantoodba qaar ay albaabada u xidhan yihiin qolaalka marka laga reebo hal qol Cadar Warsame Axmed oo ka mid ah shaqaalaha ka howlgala xanaanada degmada Garadaga ayaa waxa ay sheegtay inay la xidhan yihiin qalab la'aan markii ay waayeen waxay ugu adeegaan bulshadana ay albaabada u laabeen kadib markii sanadkii hore qalabkii yaalay uu dabmaray haddaba waxay ugu baaqday xukuumadda Soomaaliland wasaaradda caafimaadka iyo cid kasta oo danaynaysa inay ka soo caawiyaan dhinaca qalabka iyo dawooyinka hadaladeedina waxa ka mid ahaa wax la yiraahdo ma jiro xanaanadiina yani cid la'aan darteed macnaha cid la'aan darteed aan qalab la'aanahay dawada aan hay muxuu ahay wax walba la'aanahay inay istaagtaban yar jirtaa taa darteed waxaanu ka codsanaynaa ciddii maxayradda iyo cid kasta oo wuxuu qaban karaysaa inay naga soo caawiso xagga dawada حلال وحنو هاي نهدي مشتت دو إيو الله وحنو هاي لا مشتت طلال كان ولا وحق قبل طلال كان ولا الله كان نبى نوك نوك وانا فقط رأيهم دمر كأي عروض أنا وقدرنا دمر كهدي يشر وحنا يوم هذا دمر عن محوه أنيميجا ودي جلأنا ووحن كوري هذا دون هذا دي كهر قفا وهذا دون وحن كوري نفقة خاطر أنا كنا قصر هي مشرين أو ماشان ده يمعطى يوحى كل شغال يستوني مشرين محوها هاي مشرين محوها هاي شغالنا قصر هي مشرو محوها لاب مشرو ومحوها هاي لاب ده ماشي سوق سكرية لكن وح شغاله ده وإليه هي مشرو وحنا كنا قصر هي مشرين مر ويفتا إيو محوها هاي أكسليريا إيو محوها هنا تمشي هاي سطو أهنيرة أنت أصلا بقى شغالة أنت أصلا هندي بابنا قاعد نسوي نفقات ترى أو حنقول آد بكواسي oo infection qaba oo waxaan ku waxay doonaan ku dhacaan dhiig kar qaba waxay doonaan baan naga haysata dhanka kale iyadoo beryahan dambe ay xaalad abaareed soo food saartay gobolka Sanaag taasoo ay dadka xoolo dhaqatada iyo dunyadaba ay la soo dirseen duruufo aad u adag ayaa waxa ka warbixisay xaaladooda nololeed mid ka mid ah dadka reer miyiga ee caafimaadka soo mooday MCH-ka degmada Garadaga iyadoo ka jawaabaysana waxa ay tiri waxaan sheegay aad u xanuunsanaya waxaan ku yiri aad ay noo saameeyeen xanuunadu waxaan sheegay aad u xanuunsanano anigu baan ka mid ahay nafaqa darrada ka mid ah dawaaka dad baan idinka warramanaa walaalaya caruuru sideedii waxa aan la iibsadana waan ka weynay Faraxa Cabdi Nuur telefishinka caalamiga ee Home Cable TV degmada Garadaga ee gobolka Sanaag